السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان قيارته سو دوادا ومركله برنامج كله يكيستا تي في مالك waa khamiis waa 2 Oktoobar 2025 barnaamijkeena maanta insha Allah taala waxaan ku eegi doonaa saameynta ay ku yeelanayso programyada ama barnaamijyada ay fan-gareyn jirtay dawladda federaalka ee dalka Mareykanka kadib markii ismariwaa ka dhashay Congress-ka dalka Mareykanka ee xagga budget-ka ah laga goostay lacagtii ay ku shaqeynaysay dawladda federaalka ah haddii aad nagu cusub tahay subscribe to channel hadda hore noola joogtay like and share the video waxaan eegi doonaa insha Allah taala programyada lacag la'aanta ay ku dhici doonto shaqaalaha ka shaqeynayay iyo dawladda federaalka ah sida ay u saameyn doonto arrinkan lacag la'aanta ah oo soo food saartay kadib markii Congress-ka dalka Mareykanka uu isku mari waayay sida loo maareynayo arrimaha badankood haddii aan ku bilaabo waxaan eegi doonaa shaqaalaha u shaqeeya dawladda federaalka ah sidee ayay u saameynaysaa markaan ka soo bilaabo waxaa soo socda baa la yiri shaqaalaha dawladda federaalka ah u shaqeeya kuwooda essentialka la yiraahdo oo muhiimka ah sida kuwa ka shaqeeya airportada oo security-ga TSA oo kale iyagu shaqadooda way sii wadanayaan hase yeeshee wax pay ah oo ay helayaan ma jirto tan iyo inta laga baxayo shutdown-ka lagu jiro waxa kale oo isagana shaqeyn doona shaqaale fara badan oo federaalka ah sida kuwa diyaaradaha haga ee loo yaqaano air traffic controllers qoliyaasna way shaqadooda way sii wadanayaan inkasta oo wax jeeg ah aysan heli doonin marka shaqaalaha essentialka ah oo muhiimka u ah dawladda federaalka ah ee Mareykanka iyagu way shaqeynayaan hase yeeshee dad fara badan oo waxa jiri doona aan shaqada ama laga ceyrin doono ama gurigooda loo diraayo oo aan shaqada laga ceyrin laakiin aan wax lacag ah aysan soo galeynin madaxweynaha ayaa wuxuu sheegay in uu rabo in qoliyaha dimuqraadiyiinta u badan oo u shaqeeya dawladda federaalka ah uu rabo in uu shaqada ka ceyriyo inkasta oo uu sheegay in kuwa essentialka oo muhiimka ah aysan saameyn doonin militariga isaga wax saameyn oo fara badan oo ay ku yeelanayso ma jirto arrimaha militariga way shaqeyn doonaan inkasta oo la sheegay dadka veteranska ah oo u soo dagaalamay dalkan kaysaskoodii cusbaa inaan la qaban doonin oo xaggaas shaqaale yaraan ay kasoo food saari doonto diyaaradaha way shaqeynayaan air traffic controlka kuwa diyaaradaha haga sidaan idin sheegay way shaqeynayaan waa essential kuwa TSA-da oo airportada ka shaqeeya security-ga hubiya in qofka uusan wax dhibaato ah ku ahayn dadka uu la duuli rabo kuwaas way shaqeynayaan TSA-da marka waxaa jirto program in ay sheegayaan oo ay leeyihiin 2 saac ka hor flight-kaaga haddii domestic uu yahay oo dalka Mareykanka dhexdiisa uu yahay imow si lane-ka uusan kugu dheeraan shutdown noocan oo kale ah ama in dawladda federaalka lacag la'aan ay ku dhacdo hadda ka hor ma dhacday yes way dhacday 2018 ayay dhacday waxaana ay gaartay ilaa waqti dheer bay qaadatay in heshiis ay ka gaaraan baarlamaanka dalka Mareykanka ama Congress-ka aqalka hoose so arrinkan markuu dhacay waagaas waxaa dhacday baa la yiri in shaqaale badan oo u shaqeynayay xagga security-ga ee TSA-da ee airportada ay call off sameeyeen oo ay qaateen they call in sick baa la yiri waa xanuunsanahay maanta fasax baan u baahanahay dad fara badan oo iyaga ka mid ah ayaa soo wacay and that's the reason-ka sababtaas waa sababta keentay in ay dadka ku booriyaan inay 2 saac soo hormaraan oo aysan soo daahin waxa kale oo su'aal ah soo noqotay haddii dawladda federaalka lacagta laga goosto lacagta odayaasha la siiyo dadka curyaamiinta oo disability-ga ah la siiyo social security-ga ma go'aysaa arrinkaas waa maya dadka lacagtaas qaata waayeelada social security-ga xoogaada dhowrka boqol ah iyo dadka maaragtay disability-ga haysta iyagu waxay u baahan yihiin lacagtoodana way helayaan inkasta oo la sheegay in shaqaalaha social security-ga la yareyn doono taasna ay keeni karto in applications cusub oo social security ah dadka jeega apply gareynayay oo benefitkaas ama faa'iidadaas qaadan jiray waxa ay weyn doonaan in application cusub aysan qaadan maadaama ay yaraan doonaan shaqaalaha ka shaqeeya xafiisyada social security-ga marka wixii dadkii hore oo systemka ku set up gareysnaa iyagu waxooda way helayaan laakiin dadka cusub application ma helayaan department-ga health-ga Medicaid-ka kaarka caafimaadka iyo Medicare-ka
sidee ayuu u affect garaynaya waxaan fiirin doonaa waxaa la sheegay in ugu yaraan 80,000 oo qof ay ka shaqeeyaan 80,000 oo qof oo programyadan ka shaqeeya xagga caafimaadka waxaa la rabaa in 32,000 oo ka mid ah shaqada laga fariisiyo oo aysan wax jeega qaadan inkasta oo sida la sheegay qofka hadhow dambe marka dowladda ay lacagta ay hesho back pay ay siin doonaan oo lacagta dib loogu soo celin doono dadka laakiin furlough-ga laga dhigay oo shaqada laga fariisiyey iyaga wax jeeg ah dowladda kuma laha so 32,000 haddii laga tuuro 80,000 oo qofna ay ahaayeen dadka ka shaqeeya totalka federaalka u shaqeeya oo xagga caafimaadka ka shaqeeya Medicaid-ka Medicare-ka CDC iyo qolyahan controlaha Center for Disease Control and Prevention-ka iyo qolyahan FDA-da oo cuntada iyo daawooyinka controla intaasba 32,000 qof ayaa la fariisinayaa baa la yiri oo laga yaabo in shaqada ama dib loogu soo celiyo ama aan loo soo celin marka arrinkan wuxuu keeni karaa baa la yiri in applicationada cusub ee Medicaid-ka iyo Medicare-ka aan la aqbalin iyo in processing time-ka haddii ay wax ku soo galaan ay dheeraato sidaas la mid ah waxaa iyadana arrinkan uu saameynaya ardayda dhigata jaamacadaha waxa ay sheegayaan in ardayda Pell Grant-ga lacagta la yiraahdo oo lacagta free-ga oo jaamacadaha lagu dhigto la siiyo ilaa 5,400 oo iskuul ayaa departmentigan oo waxbarashada waaxda waxbarashada aan yiraahday ama Department of Education ama wasaaradda waxbarashada ay 5,400 oo iskuul ayay waxay siisaa lacag oo Pell Grant la dhaho lacagtaas oo ah lacagta financial aid-ka lagu caawiyo ardayda saas la mid ah programka federaalka ah oo isagana lacagta federaalka laakiin laga rabo inaad soo celiso Pell Grant-ga lagama rabo inaad soo celiso waa lacag free ah dowladda federaalka ay bixiso laakiin haddaad deen ka qaadato oo under the federal program ku qaadato waaxda waxbarashada lacagtaas waa lacagtii la soo celinayay so application cusub iyaga naftooda ma qaadan doonaan sidaas la mid ah waxay sheegeen in ardaydii horey lacagta loogu lahaa ay paymentigii ay bixin jireen ay wadaan oo aysan joojin karin so waxa ay sheegeen waxay stop garaynayaan ama ay joojinayaan grantiga lacagaha applicationada cusub oo FAFSA ama applicationka jaamacadda dadka dhiganayo ay isticmaalaan oo lacagta free-ga ay ku qaataan shutdown baa laga dhigayaa wax cusub oo la qaadanayo ma leh laakiin markay dowladda ay soo noqoto oo lacagahan loo soo daayo shaqadii dib ayay u bilaabi doonaan arrinkan kale oo aad iyo aad dadka uga walwalsanayeen waxa waaye arrinka food stamp-ga kaarka cuntada iyo arrinka wiiga maamooyinka iyo carruurta yaryar women and infant maaragtay care programkaas wiiga way affect garanaysaa baa la yidhi oo hadda bishan October lacagteedii way bixiyeen dowladda federaalka way ku sii talagashay laakiin bishan wixii ka dambeeyo haddii uu sii socdo shutdown-ka oo lacag la'aan ay dowladda sii ahaato waxaa dhici doonta in hataa programyadaas ay lacagta ka dhamaato iyaga naftooda they run out of money markay ka dhamaatana wax lacaga oo lasoo diri doono kaar food stamp lagu soo shubaa ma jiro iyo wax qof maamooyinka lacagta lagu caawiyo oo dhaqaalaha cuntada waxa lagu siiyo feeding programka weeka isagana meeshaas uu ka baxaya so waxay rajeynayaan in inta ka horeyso oo aysan arrinkan dhamaanin laga gaaro hal arrinkan isku haystaan labadan qolo Congress-ka ah oo iyagu isu haysta House-ka iyo isu haysta iyo Senate-ka aqalka sare already vacation buu iska aaday because ma rajeynayaan in ay arrinkan lagu soo heshiiyo xilli dhow dimuqraadiyiinta ayaa iyagu waxa ay ku doodayaan in dhibaatadan ay ka dambeeyaan xisbiga jamhuuriga ah Republicans-ka because waxa ay leeyihiin labada aqalba iyaga controlo way baasin karaan waxa ay rabaan laakiin waxyaabaha la isku hayo waxa waaye dadka kaarka caafimaadka faqriga oo Medicaid-kana ka dheer oo lacag sameeya lacag fiican oo ku filanna aan helin oo ay ku gataan insurance ama caymis caafimaad naftooda ah dadkaas ayaa waxaa la isku haystaa in programkii ahaa Obama Care oo programkii Obama uu keenayay ee xagga caafimaadka oo medical care-ka ahaa oo discountiga siinayay dadkaas ayaa la isku haystaa in programkaas bay rabaan jamhuuriyiinta inay meesha ka tuuraan dimuqraadiyana waa diidan yihiin marka qolay farta ku fiiqaysaa oo waxay leedahay iyagaa ka dambeeyay laakiin hadeer uma eka
ilaa iyo haddeer sida saxaafadaha badan ay qorayaan wararkana ay ku soo baxayaan uma eka in heshiis haddeer ay ka gaarayaan programka isaga ah waan fiirin doonaa insha allahu tacaala xilligii ay ka gaaraan laakiin intaas oo program ayay saameyn ku yeelan doontaa inta ayaan rabay inaan ka dabageeyo waa idin salaamahaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh